هاي محاضرة لا دولار شيخ وحرمينا ويدي dadka imika waxay sameeyaan taxiya la isu diraa text message haye marka taxka mar waxa ku qoran hadaad sii dirtid maaragtay intaas ajaraad helaysaa ama maxaa la yiraahdaa xadiis oo kale soo qaadanayaan xornayaan hadaad intaas oo qof u dirtid ajar intaas oo kale abaad helaysaa ama hadaad diri weydid maxaa la yiraahdaa waxa xataa kugu dhacayo oo kale aad marka arintaas marka waxa weydiin lahaa mashida ay waxa dadku isu dirayaan mashida xaqi ka imanayaan haduu garanayo iyo muxuu ka qaway su'aasha labaad waxa weeye even mar waxay soo raacinayaan fiidiyoyo ku soo dirayaan oo qof xanuunsanayo kale meeshii haduu doono private party oo xoog meel xanuun hayo marka waxa soo kale bal ka waran sheekh aad baad u baadsantaa walaal waa lagaga jawaabiyaa sheekhow haye bismillaah wax jira ma sheekadan waxaa sameeya qolooyinka masiixiyiinta asal waxay ku haysaa qolooyinka masiixiyiinta waxaan hayaa qoraal kaniisad ay soo saartay oo sidaas oo kale ah qolooyin Filibiiniyiin ah baa yaan ka qaaday macnaha waraaqada noocaas oo kale ah Christian ah oo iyaguna sidaas oo kale dhahay marka wax shariicada islaamka sal ku leh ma aha wax asalkeedu uu ka soo jeedo qolooyinka masiixiyiinta ah ee risaale iyo message in soo gaara waxa ugu xoog badan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala isna lama oranin hadaad gaarsiin weydo dadka dambi baad galaysaa ama xanuun baa ku qabanayay wixii la mid ah waxa ka xoog badan ee la leeyahay hadaad gaarsiin weydid oo dambi macnaha xanuun baa kugu dhacay iyo wixii la mid ah muxuu noqon karaa marka lan kalaamki Ilaahay subhanahu wa ta'ala khaliq Allah subhanahu wa ta'ala warkiisi weeyaan lama dhihin hadaad qof gaarsiin weydo dambi baad ku dhacaysaa ama intaas xanuunaa ku qabanaya wixii la mid ah in diinta intaad taqaanid aad gudbisid hadaad taqaana inaad gudbisid waa shay ma'muur ah ballighu walaw aaya ballighu anni walaw aaya oo ah qofku wuxuu yaqaano laakiin hadaadan waxba aqoonin dambi kuma saarna inaad wax barataa dambigaagu yahay inaad adigu macnaha laga doonaya hadaadan wax baranin dambi baad ku dhacaysaa laakiin shay la leeyahay hadaa gaarsiin weysid ummadda intaasoo xanuunaa kugu dhacaya intaasoo kana kugu dhacaya lama hayo shariicada islaamka diinta allana waa yusri xoog maaha khasabna maaha wallahu a'lam bisawab midan ku saabsan sawirka loo soo dirayo qof buko kale waa wax ay ku beerjilicsanayaan laga yaaba oo la leeyahay qofkan waan arkay ilaahayaan waxan markuu gaarsiin waayay sidan uu noqday qaarkood waxay ku dhahayaan message-kii iyo risaaladii loo soo diray ayuu gudbin waayay shaqadii buu waayay qofkan waa xanuunsaday qofkan ilmihiisii baa sakaraad noqday reerkiisii baa dhintay iyo wixii la mid ah waxaas waa wax iska qisooyin amooyaan wax xaqiiqo ah maxaa yeelay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ah hadaad gudbin weydo waa xanuunsanaysaa laguma dhih marka say ku dhici